qisadani walaalayaal waxay leedahay oo marka ay tilmaamaysaa caaqibada ay leedahay xalaashu iyo ciribta ay leedahay xaaraantu maal badan oo xaaraana nafci darnaantiisa iyo maalka xalaashi nafciga uu leeyahay iyo waxyaalaha ubadka looga tagaa haday xalaal tahay iyo haday xaaraantaasi u kala duwan yihiin qisadan Abu Ja'far al-Mansur boqorkii la oran jiray ee kamid ah boqoradii dawladda Cabbaasiinta ayaa fi yawmin min al-ayyam waxa uu soo galay culimada islaamka caalim kamida waa Muqatil ibn Sulayman al-Balkhi sheekhi la oran jiray وحاجة تفسير كما كان علماء أقوان تقوله كم يدعها أبو جعفر المنصور وحاول مقاتل بن سليمان البلخي وحكول مركا عيذني يواني ويوعدي وحمقاتل ما وحن كوعدية بما رأيتم بما سمعتم ووحن مقلان كوانية بسوحان أركي مركاسي بل بما رأيت أبو جعفر روح بل وحد أركتي وهذا لك لانتي ونرش هذا أنت هذا نولد مركا هذا لك لانتي تاي يواني بولي أبو جعفر المنصور رحمة الله تعالى عليه وحولي مركا سليمان مقاتل بن سليمان البلخي وحا يري يا أمير المؤمنين لبدا عدل لبدا بقوب جوج بانو أها وحن قوب جوج أها هشام بن عبد الملك ما أنت الدنيا ذا كتجي وحا كلون قوب جوج أها عبد العمر بن عبد العزيز ما أنت سنة الدنيا ذا كبحي وحن قوب جوج هشام بن عبد الملك وكتجي عرور لبية طبانا إياها أنت يا ذكر فربضا ولا حسر ولا عدد أو كتل مامي إني أهيد waxay 1 milyan oo diinaar ayuu adduunyada kaga tagay hasaat Umar ibn Abdul Aziz oo isna caruur marka 10 ka badan ka tagay wuxuu adduunyada kaga tagay marka 20 diinaar oo kaliya ayuu adduunyada uu kaga tagay 8 diinaar oo kamid 20kii diinaar wuxuu waxa ay raaceen aaskiisii ilmo Umar ibn Abdul Aziz ilmo Hisham ibn Abdul Malik markii la dhaxalsiinay dhaqaalihii aabahood qof waliba wuxuu helay hanti aad iyo aad u fara badan oo qof walba ku dhawaatay inuu 1 milyan oo diinaar lacagti waqtiga marka jirtay inuu marka uu qaato way lacagta uu ka tagay ma yahin 1 milyan ee way ka badanayd ee waraadsadii ayaa qof waliba wuxuu helay in ka badan markay 1 milyan oo diinaar hasaat Umar ibn Abdul Aziz markuu 20 diinaar ka tagay ee 8 aaskiisa ay ku baxeen 12kii soo hadhay ayaa marka caruurtii loo qaybiyay labadii amiir wa Umar ibn Abdul Aziz iyo Hisham ibn Abdul Malik labadiiba adduunyada waa ka baxeen labaduba ubad ka tageen midubadkiisa wuxuu ga tagay hanti fara badan midna wuxuu ga tagay ubadkiisa wax hanti aan ahayn oo marka waxa weeyaan 12 diinaar wax macna badan ama dhaqaale sida u badan maaha way waxad qiyaas gaaraya 8 diinaar marka ay ku bixeen aaski diinaarku xilliga qiimo intee leeg ayuu leegaa qiimihiisuna aad u yara ay dareemaysa hasa ahaatee labadii amiirba hooyada oo dhinte ubadkoodina xaaladda ay kaga tageen markii dambe maxaa dhacay adduunyadii siday noqotay maxay ubadkii Umar ibn Abdul Aziz siday noqdeen ubadkii markaa Hisham bin Abdul Malikna aynka ay warkoodu noqday wuxuu Muqatil ibn Sulayman al-Balkhi waxaan goob joog u ahaa anoo geerida aabayaashood goob joog u ahaa waxaan goob joog u ahaa caruurtii Umar ibn Abdul Aziz oo marka waxa weyn la ururinayo jihaadada loo ururinayo fardo loo ururinayo dhaqaale boqol faras laba boqol oo faras konton faras jihaadka marka ku deeqa oo waxay jihaadka ku dara marka masaajidda laga naadinayo ila leeyahay farda loo baahay fardo technique ah waqtiga farda loo baahan jihaadka lagu galo iyagoo marka 200 faras ku dar ayaan garanayaa buu nin walba sadaqadaysta waxa kale oo goob joog u ahaa ilmo Hisham bin Abdul Malik oo magaal masaajidda looga dawaraayo oo leeyahay waxa loo soo ururiyo ilmo Hisham marka gaaja ayay marka u dhimanayaan oo busaarad ayaa ku dhacday ee waxa loo qaadamaha loo ururiyo maxay taasi na tusaysaa bal suurayso ubad aad maal badan uga tagtay oo laakiin bila tarbiya ah iyo ubad aad tarbiyaysay oo aad uga tagtay marka waxay tarbiya wanaagsan oo dhaqaale marka aanad uga tagin waxa kale calaamad u tahay maalka xaaraanta ah ee ubadkaaga marka aad uga tagtaa way ku dayacmayaan oo waxa dhici karta in iyagu dawarsanaya marka ay ku dambeeyaan qisadaasi kutubta marka daraajimta haday tahay marka Abu Ja'far al-Mansur iyo haday tahay Muqatil ibn Sulayman al-Balkhi iyo haday tahay marka Umar ibn Abdul Aziz iyo haday tahay waxa weyn Hisham ibn Abdul Malik iyo haday kutubta kale daraajimta aan ahayn qisooyin ka warrama ay tahayba waxay qisadaas waa laga helayaa oo waxa laga helayaa marka meelaha samadinaad ah oo in badan culimada waa tilmaamaan waxa marka qisada ku sugan marka ibra iyo marka wax lagu qaato sallallahu ala rasuulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa billahi tawfiq